waxbarashadu sideedaba horta waa wax dadku ay umadu ku nooshahay ama ay ku nooshahay weeye haddaynu dawladda Soomaaliland nahayna waxbarashada wasiir baa magacaaban wixii wanaagsanaada iyo wixii ka xumaadaba wasiirkaas aade loo daba fadhiisanaya dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah labaduba hawshoodu xagga dhaqaalaha aad bay dadka danyarta ugu xun tahay aad bay ugu xun tahay iyagoo dhaqaalaheenu bay iska kooban yahay ayaan haddana cid control kartaa ama cid eegi kartaa aanay jirin haddaan ku horeeyo farqada koowaad ee kuwaabaminta haddii carruurta waalidku ay soo kaxeeyaan oo ay geeyaan malcaamad quraanta waxaad moodaa in aan cidi ka haynahayn isagoo qofku 3 jira oo aan 2 jira bay intay qaadaan bay meel lagu xareeyo oo aan quraanba lagu dhigin bay geynayaan waalidku way iska tahriibinayaan wax kale ma aha wax ka hayun bay rabaan waxbarashadu may tala gelin waxaan la waalidka waan carruurtiina ka daaya meeshan hadduu doono ninka cadaankii furtay manhajkeenaba manhaj aan ahayn lagu dhigayo waxaan soo jeedin lahaa waar intay carruurtiinu wax garanayso qalbiga iyo fahamku uu wanaagsanaanayo yaan wax kale la idinkaga shubine meelahan dadka gaarka xidheen keejiyada yaryara ee waliba kuwa cadaanka haystaan ka daastamana dawladda lacagta faraha badan la idinkaga qaado taa waalidkaan soo jeedinaya wasiirkana waxaan leeyahay oo soo jeedinaya wasiir waxbarashada kormeerkeeda wasaaradda Saalix wax ka qabashadeeda wasaaradda Saalix wixii ku soo kordha wasaaradda Saalix waxaan ku soo jeedin lahayn dugsiyada gaarka loo leeyahay dugsiga 20,000 ee arday dhigato labada bilood ee fasaxa lacagta waa laga qaadaa wasiir labada bilood ee fasaxa 20,000 oo arday baa dhigta oo midka ugu yar laga qaado $25 haddana 3 bilood ee fasaxa lacagta waa laga qaadaa qofkii waalidka kii waxaystay waxba yeeli mayso waabu awoodaa kii aan gurigiisaba lagu qadaynin ee haddana 3 bilood lacagtii laga qaadana intuu nasan lahaa uu si ururin lahaa inta dambe uu dhiganayo cid ka eegta ma hayo wasiir haddaad og tahay arrintaasna wasiir kada oo ka daayidhe haddaadan ogeyna wasiir waxaan ku soo jeedin lahaa arrinta inaad kawl gasho taasina waa taa berigii hore waxaa jiri jiray oo ku jiray manhajka oo loo dhigi jiray ardayda buug la yiraahdo kacaanka wadaniyadu ahaa waxaan soo jeedin lahaa in manhajkeena lagu daro buugga wadaniyada waxaan qabaa inaanu ku jirin si dhalinyaradu ay ugu ababto oo ay u ogolaato oo ay ogaato wadaniyadu waxay tahay in lagu daro weeye ayaan soo jeedin lahaa taana wasiir macallimiin baa jirta dibadda laga keeno oo iskuulo gaarana furatay oo lacag غير الحد dadka qaada
macallinkaana macallimiin waxa ay dhigaya oo Soomaaliland jooga oo aqoon leh oo ma garanaysaa dadkeenu baa Ilaahay waxa kala tusayay ayaa ka buuxa wadanka mudane wasiir dugsiyada iyaga laftooda carruurta yar la geenayo lacagta badan laga qaadana qaar baa 300 laga qaadaay kuwa haddaad ogteena balka hawlgal iyaga laftooda haddaan dawladdu ka mas'uul ahaanin kuwa bareefadka iyo kuwa kaleba waxa dhexdeeda ka socda de waynu daaduumayna ama waynu shaqadeenu mid wanaagsan noqon maysa midna wasiir waxaan ku soo jeedin lahayn waxbarashada adaa u magacaabane hadday naga xumaatana adaa ku qoran hadday inoo wanaagsantan